madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka labada gole ee dowladda Jubbaland Salaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxda Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka dardargelinta dhismaha maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo sidii gobol nabadeed loogu fidin lahaa maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna bismillaahir rahmaanir rahiim wabina astaqbal ala amur diin sallallahu alayhi sayyidina rasulullah alxamdulillah ilaahay nabad lagu soo celiyay waxaan kale markii hore u aadnay aaski Allahu naxariista marxuum sareeyay maxaa sawtar ka bacdina xalay miraadka xamar maraad baa ka xigo dana badan iyo wax badan oo hawlo qaranka aan ku jiray waxa ugu badan waxay ahayd bal sidii arrimaha doorashada ay u qabsoomi lahaayeen iyo in la dhameystiro waxyaalaha kale ee ka dhiman deegaanada kale sida maamul sameyntii Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan iyo xalinta arrinta Ahlu Sunna iyo Galmudug in balanahaas la gaaro ka bacdina insha Allah waxaan ku noqon doonaa waqti dhow shirki kale oo madasha wada tashiga qaran wax badan oo isbedel ma jiraan wadambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in doorashada dalka Soomaaliya ay dhacayso waqtigeeda wuxuuna xusay in Soomaaliya looga baahan yahay in ay isku tashato doorashadu sideedaba insha Allah u dhacaysa waxa hadda ugu badan ee laga sugayana waxa weeyaan in waqtigii loogu talagalay la soo gudbiyay ay sideeda u socoto ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka iyo dadkii loogu talagalay ay xaroodaan waana rajaynaynaa in Soomaalidu ay isku tashato xataa hadii la waayo dhaqaale kale oo lagu sii waxay go'aanka dhabti waxa weeyaan in isku tashi la sameeyo doorashadana waqtigeedii laga dibdhigay wax masaalix kale oo loo dibdhigayana ma jirto marka wixii kale insha Allah idin guul baan idin rajaynayaa Zakariya Cabdi Qaadir Karazai TV-ga caalamiga bulsho magaalada Kismaayo.